kulan wanaagsan saaxiibayaal lamaantii mar kale ismaqal habboon ku soo dhowaada barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono dagaalka faraha looga gubtay oo weli kasii soconaya gudaha dalka Itoobiya galayna maalinkiisii 17aad iyadoona xoogagga hubeysan ee ka soo horjeeda dowladda Abiy Ahmed ay ku andacoonayaan inay dileen saraakiil sarsare oo heerkii ugu sareeyay dhanka ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ka gaaray dhinaca kale waxaa jira komishanka xuquuqul aadanaha ee United Nations iyo waliba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo hadallo kulkulul isdhaafsaday iyadoo ay ka wada hadleen dagaalka ka soconaya oo United Nations loo sheegay inaysan boos kaga banaanayn ka hadalka dagaalka TPLF kula jirto dowladda Itoobiya qodobada kale waxaa ku daawan doontaan iyadoo ay jireen in sida la sheegayo xoga la helayo diyaarad qaaday saraakiil sarsare oo dhanka sirdoonka Itoobiya ee markaasi la yeelanayeen wada hadal xogaga TPLF oo wadan kamid ah kuwa dariska la Itoobiya ay gaareen ayaa la sheegaya in markan ay xogahaasi noqdeen kuwa sax ah isla markaana ay soconayaan wada hadal laga galayo dagaalka iyadoo aan ogeyn in xabad joojintii lagu dhawaaqay ay burburtay haddaba sidee markaasi suuragal ka tahay iyadoo dagaal uu soconayo in haddana ay markaasi kulmaan wufuud ka kala socota labada dhinac waa TPLF iyo waliba dowladda federaalka Itoobiya qodobadaas ayaan eegi doonaa iyadoo wali ay jiraan dagaalada ka soconaya gobolada aan iraahday Wollo Walket iyo waliba deegaanada kale ee markaasi dagaalada ka qarxeen duqeymihii ugu dambeeyay ee markaasi laga fuliyay goobahaasi xilli la sheegayo mar kale in dalka Itoobiya ay markan doonayso in ay furaan dhinaca waxbarashada oo dadka wax la baro dhinaca kale dagaalo ayaa soconaya Itoobiya ayaana xaqiijinaysa inay markaasi hindisooyin dhinacyo badan oo rajo u leh rabitaanka markaasi shacabka ay doonayaan in ay sameeyaan waxaana la sheegayaa inay dhab ka dhigi doonto hindiso horumarineed rajo weyn u yeelaya sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya Birhaw Jula sida warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ay markaasi qorayso ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri cadawgeena waxaanu ka markaasi ku joogsanaynaa ama aanan ka nasin doonin goob walba ay joogaan waan ugu dabitagi doonaa ay yiri iyadoona hadalkan la sheegay in markaasi uu kaga sii darayo xaaladda oo dagaalka uu horinayo qoraal ay soo saareen TPLF-na waxay markaasi ka digtay in iyagu dhankooda markaasi loo xaglinin laakiin xaaladda lagu soo dabaalo iyadoo ay jirto in kulan ay yeelanayaan golaha amniga ee qaramada midoobay Debersion oo markaasi hogaamiyaha Tigrayga ayaa waraaqdiisa waxa markaasi ay ka koobneed waxyaabo ay ka mid yihiin coladaha iyo geedi socodka nabadda iyo sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadkiisa oo markaasi ay saameysay dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya gaar ahaan galbeedka oo gobolka Tigray waqooyigiisa uu ka jiro arrimo bini'aadantinimo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay oo ah kii afraad ee Mareykanka u soo magacaabo geeska Afrika tan iyo markii dagaalada uu ka qarxay sanadkii tagay ee 2020 bishii November Itoobiyana u jooga ayaa markaasi caadiyan waxa markaasi cadaadis ku saaraya dhinacyada sidii dib loogu soo noqon lahaa miiska wada hadallada waxaana arintan iyaga markaasi ka dhaga adeegaya dowladda federaalka Itoobiya oo inta badan ku eedeynaya maleeshiyada TPLF in iyagu ay bilaabeen dagaalka isla markaana aysan joojin doonin oo markan ay ka guungaari doonaan qodobadaas ayaan inta badan ku faahfaahin doonaa stuudiyana waxa igula sugan saaxiibkay Shide oo inta badan ka faalooda arrimaha dalka Itoobiya iyo waliba kuwa gobolka inagoo si gaar ah isu tuldaagi doono qaybaha dambe hadallada kulkulul ay isdhaafsadeen wasaaradda arrimaha dibadda federaalka Itoobiya iyo waliba qaramada midoobay maxaase la isku hayaa Itoobiya si xaalkeeda halkee ku dambeyn doona ayaan inta badan wax ka weydiin doonaa Shide oo ka faalooda bal Shide soo dhawow waad mahadsantahay Axmedow haddaynu ku sii socono wararka Itoobiya waxa ka soconaya dagaalada culus oo u dhaxeeya militariga dalka Itoobiya iyo saaxiibadiisa gaashaanbuurta ugu horeysa Eritrea iyo ciidamada gaarka ee deegaanka Axmaarada iyo ciidamo kale oo ka soconaya maamul goboleedyada waxa loo yaqaan dawlad deegaanada dalka Itoobiya oo garab siinaya militariga dalka Itoobiya inay dagaal xooggan ka wada socdaan cid walba oo ogtahay ishuna ka dhageysan caalamkuna uu la wada socdaa inay gobolada deegaanka Axmaarada ay dagaalada intooda badan ay ka soconayaan
dagaalka ka sokow waxaa jira waan ay beesha caalamka wado oo lagu wada hadalsiinayo xogaga Tigreega ee aadka u hubaysan ee laf dhuunta gashay ku noqotay dowladda Dr. Abiy Ahmed uu Dr. Abiy Ahmedna uu ku curtay dowladnimadiisu ay ku curatayba dagaalka asaga TPLF u dhaxeeya ah inay beesha caalamka dalalka ay Mareykanka ugu horeeyaan in ay isku dayayaan in ay isu keenaan xogaga TPLF iyo dowladda Ethiopia miiska wada hadalka la isku yimaado colaadana gabi ahaanba la joojiyo ka soconaysa dalka Ethiopia hase yeeshee weli dagaalka xooggiisa ayaa ku sii fidaya deegaano hor leh waa hagaag bal waxaa sheegtay in dagaalka uu sii fidayo deegaanada horta leh ee markaasi dagaalka xilligan uu ka soconayo xagee laga xusi karaa waxaa laga xusi karaa goobaha uu dagaalku ka socdo ama goobaha istiraatiijiga ah ee dowladda Ethiopia iyo xogaga Tigreega ku dagaalayaan qolob walba u ahaa muhiimadda ama taageedkeeda koowaad waa inay qabsato waqooyiga Gondar sida wada ogsoonahay waa magaalo istiraatiiji waa magaalo qadiimi waa magaalo taariikhi oo dalka Ethiopia caanka adduunka inta badan u yaqaano goobo macahdiya oo caan ah ku yaala Gondar waa caasimadda labaad ee deegaanka Axmaarada Bahardar waa caasimadda koowaad ee deegaanka Axmaarada magaalada labaad waa Gondar waa magaalo caan ah xoogga Tigreey marka Gondar waxay kaga yimaadeen qaybta waqooyiga iyo kaga yimaadeen waqooyiga Gondar halkaana dagaalo aad u culus baa ka socda oo xogaga TPLF iyo ciidanka dowladda ciidanka deegaanka Axmaarada maleeshiyaadka maxalliga ee deegaanka si weyn baa loo difaacaya waqooyigaas hase yeeshee xogaga Tigreega ayaa la sheegay inay adeegsanayaan hub aad u culus adeegsanayaan waa hagaag dhinac kale waxaa jira warar aan ilaa iyo haatan aysan ka hadlin ee dowladda federaalka Ethiopia oo la xiriira in ay dileen mid ka mid ah saraakiishii Abiy Ahmed xilligii uu xukunka la wareegay ee magacaabay isla markaana u magacaabay jaga aad u sareysa bal arintaasi maxaa laga xusi karaa shakhsigaasina waa qof ceenkee ah sargaalkaasi waa sargaal ka mid ah ciidamada militariga dalka Ethiopia waa sargaal waqtigii Dr. Abiy Ahmed uu la wareegay xukunka dalka Ethiopia sidii la wada ogsoonaaba markuu ka qaaday ninkii la dhihi jiray Samore oo ah ninkii militariga dalka Ethiopia 27 sano ee TPLF waddanka maamuleysay markuu Abiy xilka ka qaaday wuxuu u magacaabay nin Tigreey ninka Tigreey waa ninkii lagu dilay afgambigii fashilmay yaa ninka Tigreeyga lagu dilay oo waqtigii uu fashilmay ilaaladiisa ninka markuu dhintay uu magacaabay ninkan Ahmed Hassan baa ninkaas Jalaal Ahmed Hassan waa ninka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada kusoo jeeda muslim ah marra waxaa loo magacaabay taliyaha sirdoonka marka ninkaas waxa la isagoo ilaalo badan wata iyo goobaha iyo booqanayay oo dagaal ku socon xoogtii TPLF dhaxda u galay halkaas bayna ku qarijeen asagii ilaaladiisiiba marka waxay noqonaysaa generaalkii labaad ee militariga Ethiopia darajada ugu kor iska gaaray ee xoogga TPLF intii ayaga dowladdu isku dhaceen ay khaarijiyeen bay noqonaysaa welina saraakiil aad u tiro badan oo wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga Tigreega gacanta ku hayaan bal waa hagaag waad mahadsan tahay dhinaca kale waxaa jirta in markaasi Abiy Ahmed uu ka hadlayo dagaalada soconaya inta badanna maalmihii ugu horeysay waa uu ka gaabsanayay xilliganse waxaa jirta in markaasi qaramada midoobay waaxdeeda arrimaha bini'aadantinimada oo iyagu u qaabilsan dhinaca Ethiopia iyo faaqidaadooda ayaa ku eedeynaya baa la yiri maleeshiyada anirahda dowladda federaalka Ethiopia in ay xasuuqayaan xasuuq waliba shacbiyad ay ka geysanayaan gobolka Tigreey oo markaasi jabhadan oo uu hogaamiyo depression in markaasi ay ka geysanayaan dowladda Ethiopia waa ay ka hadashay bal maxay ka sheegtay maxaase laga xusi karaa Ethiopia sideedaba dalka Ethiopia hadii la dhaho hebel baa dambiila weligeed ma dhamaanayso Ethiopia si la wada ogyahay cid kasta oo xukunka Ethiopia soo qabatay dambi way gashaa dad bay xasuuqdaan dad bay dilaan TPLF tiimka la shaqeynayay dowlad deegaanada dhan bay ka soo jeedeen hadda ciidanka Ethiopia saraakiisha ama madaxda dowlad goboleedyada markii laga reebay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waa xoogga TPLF la shaqeyn jiray Abiy ugu horeeyay marka dambi Ethiopia in shakhsi kaliya lagu soo oogo ama shakhsi kaliya leedahay waxa macnaha ma keenayso Ethiopia dhammaan wada dambiila Abiy baana kow ka ah ragga dambiyada waaweyn Ethiopia ka geystay oo taliyaha sirdoonka Ethiopia soo ahan jiray 27 sano xilal badan ka soo qabtay marka haddana dagaalka socda cid wax reebatay mala TPLF dambi u geystay dowladda dambi u geystay marka dambigu cid ka sareysan male waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarina waxaa jirta in maalin dhaxda magaalada caasimadda u ah dalka Ethiopia Addis Ababa in diyaarad markaasi si qarsoodi ay kaga soo qaaday saraakiil wararkaasi ilaa iyo haatan dowladda kamaysan hadlaynin laakiin warbaahinta ayaa loo soo dusiyay oo xogaha laga helaya ay ahaayeen caasimadda dalka Eritrea ayaana la sheegayay in laga anirahda Djibouti in laga dajiyay oo wada hadal ay ku yeelanayeen bal iyaga xogahaasi maxaa ka jira maxaa ka soo baxay sideese suuragal ku noqotay in dalka Ethiopia oo dagaal uu ka soconayo in haddana saraakiil intay ka soo tagaan Addis Ababa ay yimaadaan dalka dariska gaar ahaan Djibouti
warbaahintu laba ay u kala wadaa warbaahinta qayb waxay leeyihiin diyaaraddu waxay kasoo kacday Addis Ababa waxay ka degtay Mekelle oo caasimadda gobolka Tigray ah caasimadda markay ka degtay waxay qaaday saraakiil TPLF Djibouti ay geysay Djibouti marka waxa ka socda shir qarsoodi ah u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo xogaga Tigrayga oo wada hadallo ayadoo weli dagaalku socdo dagaalka xooggiisu uu deegaano hor la ku safay yaa si dagaalkaasi loo xakameeyo gorgortan dowladda dagaalka halka ma ku hakina iyo dagaalku soconaya oo qolad u taageeroonaya dalka maamulaysa yaa laga wada hadlaya Mareykankana dabada ka riixaya sida la wada ogsoon yahay marka hawshu asaas diyaaraddu Addis Ababa Mekelle degtay Mekelle ka kacday Djibouti ay degtay waa sida xogta rasmiga lagu hayo waa hagaag aad ayuu maasan yahay gunta iyo gunaanadka barnaamijkeena ayuu u ahaa hadalkaasi shide uu nala wadaagayay xaalka Itoobiya wafaanole fari kama qodno waxaase la eegi doonaa kulamada ay ka yeelanayaan beesha caalamka iyo weliba wada hadallada mararba marka ka dambeysa dhicisooba ee markaasi u dhaxeeyo jabhadda TPLF iyo weliba dowladda federaalka Itoobiya haddaba daawade waxaan markaasi idin weydiinaynaa su'aal qusaysa sidee ayaa looga badbaadin karaa dalka Itoobiya in xaaladdu ay kaga sii darto fikir nooceese ayaad markaasi siin lahayd dowladda federaalka Itoobiya Abiy Ahmed uu hogaamiyo taa oo markaasi mas'uuliyad wax walba oo ka dhaca iyadoo ay leedahay midda koowaad maadaama ay markaasi ku fadhiyaan maqaamka ugu sareeya ee dowladnimada TPLF-na ay tahay markaasi ismaamul kamid ah kuwa federaalka Itoobiya ka hoos curtay tan kulanti dambe intaan dib ugu kulmayno barnaamijii warbixin warar kuwan ka duwan waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo